markaan ku joogsadaan damqadaa qad markuu iqaadaan ka durkaa kulanti wanaagsan saaxiibayaal halkani waa janaalka xog waraysi ninkan kula hadlaya waa saaxiibka walaalka Munaasir Maxamed Cabdi maanta waxaan ka hadlaynaa horta u kaadi adaa ku cusubtaa janaalka qasab ma ahan xoogna ma jiro hadaa ka heshay janaalka macluumaadka uu soo gudbinayo walaalkay walaashay subscribe iska saar aan isla socono ceeb ma ahan tan kale maanta waxaan ka hadlaynaa sidee Facebook lacag looga sameeyo waxa aragtay YouTube sidee lacag looga sameeyaa YouTube lady oo lagu wada waashay laakiin ma ogtahay in Facebook lacag laga sameeyo Facebook maalin walba isticmaasha walaalay baamiya maanta hadda inta muuqaalka fiirsanaysid waxa suuragal ah inaan Facebook-gana aad 5 minutes ka hor daawatay ama hal daqiiqo ka hor gudaha hadaa gashid mobilkaaga aad furtid waxa arki kartaa markiiba Facebook-gaaga saacadaha isticmaasha qofka maalintii wuxuu isticmaalaa Soomaalida anaga aad aan u isticmaalnaa 16 minute aan astaghfirullah aan dhahay 16 saacadood 17 saacadood 24 hours qof isticmaal inta la jiifo kaliya marka laga reemoy soo marka dawad fikriga abuur sameeyay lacag ayaa laga sameeyaa ama si physical adiga xirfadaadii qof ahaan adeegso oo lacag ka sameeyay ama shirkadda lacagta ay ku ogashay ka soo saaro haddaba maanta waxaan rabaa inaan ku soo gudbiyo warbixin yar oo kooban oo ku saabsan wiil dhalinyaro ah oo Facebook lacag ka sameeyay waana kula mid wuu ka madadaaliyaa wuu ku madadaalaa wuu ka hadlaa saaxiibadiis wuu la sheekaysta haddana lacag uu ka helaa adigina aad helna laga yaabo Soomaa haddii marka warbixintan aad daawatid oo waxay ku soo koobi doontaa macluumaadka ku saabsan sida lacag looga sameeyo qaybta koowaad ee warbixintan waxay ka hadlaysaa sida qofka uu lacag uga sameyn karo Facebook aan daawan kulan wanaagsan Facebook waa aaladda ugu badan ee dhalinyarada Soomaaliyeed ay adeegsadaan kaliya kuma koobna dhalinyarada sidoo kale dad waaweyn ayaguna way isticmaalaan waxaadna arki kartaa saameynta uu leeyahay dad saqda dhexe habeenkii qadka ku gaara laakiin waxaan idin hayaa nin dhalinyaro ah oo qadkana isticmaala lacagna ka sameeyo aanu aragno ninkaas haddii aad tahay qof maalinle u adeegsada Facebook ma jirto sabab aadan lacag ku shaqayn karin inta aad isticmaalayso sameynta sheekooyinka ee boggana ma ahan kuwa adag balse waa fursadda ugu wanaagsan ee aad dhaqaale ku heli karto kani waa Maxamed Cabdullaahi Jamaica hal abuure dhalinyaro ah wuxuu si maalinle ah wararka arrimaha bulshada kuwa siyaasadda iyo sheekooyin madadaalo ahba ku qoraa boggiisa taasina waxay sabab u noqotay inay ku soo xirmaan dad badan adeegsiga bartan bulshada ku kulanto wuxuu Maxamed ka soo saaraa lacag badan waa kan isagoo ugu horeyn sharaxaya sida uu ku helo lacagtaasi waxaan fakaray in dad aan kasbado tusaale inaan warar 4 saac qoro dhacdooyin joogto aan qoro bulshadana halkaas ay kala qabsadaan marka qoraalkii dad badan ayaan ka helay iga soo raacay dadkii marka arkay inay tirada aad u bateen ayaa haddana waxaan fakaray maadaama dad badan oo xogo kala duwan u gudbisid wali lacag maada ka soo saaran markaasaan waxa u baaxday in social media aan lacagan ka soo saaro markaasaan waxa la xiriiray jaamacadaha iyo goobaha kala duwan ganacsiyada la xiriiray dhamaantoodna aad iyo aad soo dhaweeyeen oo markay arkeen page-kayga dad badan ay ku taxayeen warar 4 saac aan ku qoro hawshan asaas ayaan qabtay Munaasir fikradan oo ku dhalatay 2017kii markii uu isticmaalka Facebook-ga ee ku salaysan kaliya inaad qof kala hadasho sawir dhigto dadkuna aragti ka bixiyaan uu ku daalay wuxuu go'aansaday inuu isagoo intuba ka go'aynin uu ka faa'iideysto dadka uu haysto una adeegsado qaab warbaahineed oo uu ku soo gudbiyo xayeysiin ogeysiis iyo macluumaadyo kale oo hay'adaha uu wax u qabanayo uu uga qaato lacag Munaasir sanadkii hadda soo dhaafay kale waa sanadkii hawsha aan bilaabay markaan hawsha aan bilaabay oo aan waday akoonkii markay dib ugu noqdo 4700 ayaan ka shaqeeyay marka waa lacag runtii markii dadka aan u sheegay liin macquul ma aanu idaacadaha TV-da laga meelo laakiin waxaad moodaa in bartaan kaliya oo 24 saac macdarada aan iskaga jiray in ayada ka shaqeeyay marka arkan waxaan ogaado in idaacadaha TV-da ayada wax ka soo saar badan tahay hay'adaha shaqooyinku ay kala dhaxeeyaan waxay isugu jiraan jaamacadaha carwooyinka iyo dugsiyada waxbarasho
waxaana ka mid a dadkaasi ninkan oo maanta ay ugu eg tahay shaqo 2 beri uu Jamaica u soo waday wuxuuna ka hadlayaa sida uu xiriirka u dhaxmaray waxaan ku arkay aniga aqoon kale ah ma lahayn marka waxaan ku arkay barta Facebooka runtii qaabka maaragtay oo sameeynayo iyo maaragtay xayisiintiisa iyo sidii dad u jecel yihiin ugu xiran yihiin marka arkay ayaan u yeernay runtii markaasna runtii wuxuu noo maaragtay oo noo sameeyay adeegyo qurux badan laakiin aqoon kale oo kooni isku ma lahayn maxamed oo shaqadan kaligiis bilaabay hadda waxaa la howlgala 3 dhalinyaro kuwaas oo uu mushaar ahaan midkiiba u siiyo $50 waxaana uu mustaqbalka doonayaa inuu ganacsigan ka gaaro meel aad u sareysa Munasar Maxamed Cabdi وهجاك aad iyo aad ninkaas dhalinyarada u jeedin lacagtaas ayuu bishii intaas soo xareeyay soo adiga marka qof ahaantaada waqtina uu kugu socdaa dadaal ku bixisaa lacag ku shubtaa xitaa internetka isticmaalaysid dadkeena Soomaaliya jooga waxaan ku sameeynaa lacag ku shubnaa dhaqada way dhamaanaysaa hadda ku shubay hore ka dhamaanay bishii waxa laga yaabaa isku celis intaas oo kun inay kaaga baxdo dollar laakiin bil cagsi ka soo ceshano lacagta waa lagu ogol yahay see lagu ogol yahay qaybta hadda aad daawad marka laga soo tago qayb kala jirto waxa waaye Facebook wuxuu leeyahay AdSense macnaheedu xayeysiin aad ku xirtid gabadhii sawirka aad soo dhigaysa muuqaal u bedelay muuqaalka yar ee duubtaa waxa sameyn kartaa dad badan baa daawada muuqaalka iyo waxaaga okay good si fiican waa ku xiri AdSense ku xiri waa dalbanaysa xayeysiin aad ku korayso xayeysiintaas bishii waxa laga yaabaa adoo guriga iska joognaaba intaas oo kun shaqaysid okay waxa ku soo haray muxuu ahaa live aad gashaa marka qaar meelaha marka tagtay live ka ayaa ku xiri kartaa waxa jirto live chatting waxa la dhahaa qofka marka uu live yahay dadka comment gareenayo commentiyaas ala qofka soo comment garay lacag ka sameyn kartaa hadaba dadku laakiin ma fahansana waa waxaan waa in adiga isku daydaa teknolojiyada marka la soo saaray shirkadu iyadu way faa'iideeyay taas bedelkeedna waxa waajib ah in dadka ay iyaguna faa'iideen ka waran bal hadda adiga aaway ii soo qabo telefonkeyga aaway waa kana telefonkeyga 24 hours waa furay tusaale maadna waxa saxwaysa soo meeshan waxa kaaga lumay waqti waxa kaaga lumay iftiinka iyo aragga ayaa kaaga lumay indhahaaga maanta inta ku maqan yihiin waxa kaaga lumay waxyaabihii kale ee adiga qof ahaan qabsan lahayd hawshaada ma sahlana laakiin haddii marka aad fiirisid aad dhahad kulkulaal garaysid waqtiga intaas la eg ayaa iga lumay haddaan banaanka inta tago aan wax qabsan lahaa waxaan hubaa inaan guuleysan lahaa dad dhahdid oo aan lacag sameyn lahaa okay asaga u fikir maxaa asaga ku soo kordhin karaa dhaq marka isku dhufatid xayeysiinta ayaa ka faa'iideysan kartaa lacag ka sameyn kartaa ya maanta hadaaba ka maarmi karin inaad bahalkan isticmaasho bil aksi haddana waxa sameyn kartaa ay tahay u adeegso wadada saxda ah asaga u adeegso saaxiibayaal tan waxay ahayd muuqaal kooban oo uga hadlaynay sida lacag loogu sameyn karo Facebook waa saaxiibkii Munasar Maxamed Cabdi kulan dambe sidaas in nabadgelyo